محمد أحمد جبرتي أو كمدها مشارحينتي كغيب قلي دور الشدي مدحوينها أسجل إنه الله بارك كيرادو جبرتك سنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديد waxaad moodaa in badan in mawduuciiba laga baxay su-aasha la isweydiiyana waxay ahayduun sidee loo saxaa sidee sharaftii ay u soo noqotaa iyo karaamadii ummaddan horta midii waynu iska wada aragnaayo dee dawladu way dhisan tahay madaxweynaha jira ra'iisul wasaaraha jira baarlamaan baa jira taa waxaan u malaynayaa inaynan iskuba diidanayn halkana maynaan fadhinin haddaysan jirin laakiin karaamadii sidee lagu soo celiyaa waa laba aniga fikirkayga gaaban waxayna u dhacaysaa inta badan dawladday u dhacaysaa madaxweynaha dalka iyo inta ka hooseysa waxay tahay uun marka hore bal ilaahay aynu ka wada cabsana dhammaanteen ta kale wixii lagu heshiiyey hal la ilaaliyo uun wayba iska dhib yar tahay ta kale waxaad moodaa sharaf waxay soo noqon kartaa haddaan faraqa la ishaysanin laakiin qofkii koob loo dhiibaba haddii mid kale uu dhinaca kala hayo de koobku wuu iska daadanayaa caadi dad kale un baana ka faa'iidaysanaya hadhow marka waxay u baahan tahay dadkan aynu wax ku aaminay ee idinku shalay u dhiibteen weliba khaasatan xildhibaanadu 23 musharax bay kala dhex bixeen iyagu cidna kuma qasbin haddana waxaasoo maanta farqa la isku wada haystaa waxay u baahan tahay in waqti la siiyo la isku nasteexeeyo hadday taasi meesha ka baxdo oo dadka mas'uuliyiinta xilka loo dhiibay iyaguna ay fahmi waayaan shaarka ay xidhan yihiin oo dad kale ay ku adeegtaan maxaa yeelay waa wax iska dhacdo oo weligeed buu soo jirtay qof mas'uul ah waxa xagga dambe ka taagan qof laga yaabo inuu daa xaggiisa dambe ku jiro waxaan u malaynayaa aad waxa looga sheegi jiray dawladdii hore marka dhaleecaynta faraha badanna aynu iska dayno dawladdeennana aynu u dhimrino iyaguna talada ha qaataan tan dib u heshiisiinta laga shanqariyey anigu haddaan dalka ku guulaysan lahaa siyaasiyiintii badnayd ee dalka soo maray wax badan waxaan siin lahaa dhowr hektar oo beeraan u wada diri lahaa maxaa yeelay wax soo saarka dalka iyo dalkan in wax loo qabto lagama shaqeeyaba wax ka hadlay haddaan weligeen ma aragteen war bal aynu dalkeenna aynu sidan u dhaanno qadar baa sidan tiri imaaraad baa sidan yidhi soomaaliya imaaraadka waxay ku soo jibaarantaa mumkin qadar 140 qadar bay noqon karnaa dhulkan Soomaaliyeed haye 256 imaaradood oo qadar oo kale aynu nahay innaga waxaanu ku mashquulsanahay wax yar dahabkii aynu gacanta ku haynayna wuu inaga dhacay dad kale aan qaadanaya billaahi calaykum waxaan aad idinka codsanayaa nimanka siyaasiyiinta ah in fursad hal la siiyo waa ta koobaad tan labaad dawladdu dadka dhagaha u raariciso oo waxa maqasho iyaga dawladdu tahay taana waa wax iyadana laga rabo hadalkayga waxaan ku soo koobayaa mas'aladan dawlad goboleedyada danta dadka tiri waana la ogaa dawlad goboleedyadu ma khaldana nidaamka marka haystaa inuu wax ku khaldamo waa laga yaabaa waxaan aska bashar dadkan quraanku ma dhaqmayaan ama dawlad goboleedku isagu sidiisa uma khaldana laakiin waxa khaldan qofka laga yaabo inuu kursiga marka meesha ku fadhiyo baa si kale u adeegsanaya wixii taana taasaan ka oran lahaa aynu iswada cafino danta dalkeena aynu u soo jeedsano haddaynan u soo jeedsan shalay suuqa waxaad ku maqlayseen diinka baa wuxuu wadankeena ka maraya 100 aqliga waxaanu keeni laanahay aynu beerayna ku falan lahayn intaas siyaasad baa laga sheekeynaya mid xisbigu furanaya waxa marka waxaan oran lahaa niman yahownay iyo rag iyo dumarba aynu u soo jeedsano horumarka dalkeena inagoo mid ah haddaynan qabyaaladda iska daynin haddaynan iska daynin arrimahan kale ee hoos laga sheegayo haddaynan iska daynin musuqmaasuqa haddaynan iska daynin nin jeclaysigana halka aan baynu taagnaanaynaa ilaahay khayrkaana waafajiyo Soomaali oo midaan rajeynayna
soomaaliya guul baan ilahay dhammaantiinba. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.